أنا كذب ماذا كواد وحنا هذا وحنا هاي كتاب هذا مملكة هرجيسة كوها بصلي مياه تكرر أنا دلنا تكرر تدي بيشي كواد لبدا كل يدي يتوانك أما صوماليات بقى حياة هاي إن قدر هذي ويان هو قرل محاد موته تغير بوتلان طلعت سنة أي وحي كله اللي حاليا إنه تطبيق صوماليات ووحي كهاي المعلوم أي رياضة مملكة هرجيسة بولوري دوتا وسن نبضة يلا أقف صومالي هدبان كبح الدونان لكن أريد أسي وحي نغط هالبعض ولسي لا تغير نوالد يلا فرينية أمامية الدولة سيده هو الدستور كبدلان waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan si dhammaystiran difaaca Puntland maamulka Hargeysa haddii isku qanciyay in dagaalku ku ekaan doono magaalada Tukarraq ama degmada Tukarraq arrintu saas ma ahaanayso dagaalku wuu socon doonaa ilaa mitir ka mid ah gobolka Sool ay ku sugan yihiin maamulka Hargeysana wuxuu noqon doonaa haddii alla idmo mid buugaasa lagu daro maxaa yeelay gantar ruuxa gantarada ka qaadan karaa ma jiro dadka magaaleed anigaan guddoomiyaha u ahay waxay buuxin doonaan sidii looga bartay kaalintoodii lagu yaqaanay haddii alla idmo si dhammaystiran waxaan rabaa marka khudbadaydu waxay noqon doontaa haddii alla idmo intaan hadlay dhammaystirkeedu markaan tagno magaalada Laascaanood haddii alla idmo waa gartay gudoomiye waxaad ka hadashay dagaal aad idinku gobolka iyo Puntland ba ay wado abaabulayso deegaanadaas lagu qaadayo war saxaafadeed kala duwan oo ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka iyo dawlad goboleedyada dalka dhammaan waxa lagu baaqay in si kasta arintaasi loo dejiyo haba ahaatee marka maxaa idinka xilligan keenay inaad dagaal ku sii adkaysataan miyaysan wanaagsanayn in lagu dhameeyo wada hadal wax kasta oo halkaasi ka dhacay cidda looga baahan yahay su-aasha in la weydiiyo way dagaalka joojiyaan way ka baxaan meelaha yimaadeen oo gobolka Sool ay ka baxaan waxa weeye Somaliland wey beesha caalamku annagu tabataan waxaanu xeerinay beesha caalamku taakaasna waxay lahaayeen si labadaan Soomaaliya saarayna waa u guuldareysteen waxaanu kala ognahay ninka kiiti markuu shalay Hargeysa tagay ilaa Soomaalida wax laga kala qarsoona waxay ku wada hadleen Muuse Biixi waa u diiday nabadii inuu baxana waa diiday inuu Sool iyo Tukarraq oo ka tirsan Sool ballayana waa u diiday haddeerna maantana maamul samaynaya cidda marka looga baahan yahay in warkaa la yiraahdaay annaga maahan waa dadka diiwaanka wada laakiin annaga sharciga islaamka iyo dowladnimada iyo bini'aadanimada iyo damiirka dadka wuxuu la farayaa iyo dastuurka iyagaba inaanu daafacno oo dhiigayada u daadinno dalkayaga waa gartay hadda deegaankii lagu dagaalamay ee ciidamada Somaliland iyo Puntland ay isku dagaaleen yaa gacanta ku haya ilaa waxa jooga maamulka Hargeysa laakiin anaga ku hareeraysanahay ma sii joogi doonaa kuwarayna waqti saacad baan qaadi doonaa laakiin dadka reer Puntland waa ka faxin doonaa haddii alla idmo si dhaxsa ah